shirkadda Meta ee leh Facebook, Instagram, WhatsApp iyo qaar kale, iyo shirkadaha kale ee Apple iyo Alphabet oo leh Google ayaa la eegayaa jabinta suurtagalka ah ee xeerka suuqyada dijitaalka ee lasoo bandhigay sanadkii 2022 haddii lagu helo inay jabiyeen sharciyadan shirkaduhu waxay wajihi karaan ganaaxyo waaweyn oo gaaraya ilaa 10% dakhligooda sanadlaha ah. Madaxa ka hortagga ee Midowga Yurub Margaret iyo madaxa warshadaha Terry ayaa ku dhawaaqay baaritaanada Isniintii kaliya 6 shirkadood ayaa hoos yimaada xeerka suuqyada dijitaalka, laakiin sidoo kale waa shirkadaha teknolojiyadda ugu weyn adduunka, waxayna kala yihiin Alphabet, Apple, Meta, Amazon, Microsoft iyo ByteDance. Midkoodna shirkaduhu ma joogaan Yurub, 5 ka mid ah waxay joogaan Mareykanka, halka ByteDance ay xarunteedu tahay Beijing. 3 ka mid ah ayaa hadda wajahaya su'aalo 2 toddobaad kadib markii ay soo gudbiyeen warbixinadooda hoggaansanaanta, kuwaas oo si taxadar leh loo soo ururin doono. Waxay ku soo beegantay 3 toddobaad kadib markii Midowga Yurub uu Apple ku ganaaxay 1.8 bilyan oo euro kadib markii ay shirkadu jebisay shuruucda tartanka ee ku saabsan baahinta muusiga. Dhanka kale, Mareykanka ayaa ku eedeeyay shirkadda Apple inay keligeed maamusho suuqyada taleefanada casriga, tan oo ah dacwo taariikhi ah oo ka dhan ah shirkadda weyn ee teknolojiyadda ee la soo bandhigay toddobaadkii hore. Afhayeen u hadlay Apple ayaa sheegay in shirkadda ay si wax ku ool ah uga qayb qaadan doonto baaritaanka iyo inay ku kalsoon yihiin qorshahoodu uu waafaqsan yahay xeerka suuqyada dijitaalka. Waxay intaa ku dareen inay kooxdoodu ay dejiyeen habab kala duwan si ay ugu hoggaansamaan sharciga caanka ah ee Midowga Yurub iyo sidoo kale ilaalinta gaarka ah iyo ilaalinta amniga isticmaalayaasha Midowga Yurub. Intaa oo dhan waxaan muujinay dabacsanaan iyo ka jawaab celinta guddiga Yurub iyo horumarinta dhegeysiga iyo ku daridda jawaab celintooda ayay yidhaahdeen. Dhanka kale, afhayeen u hadlay Meta ayaa sheegay in isticmaalka shirkadda ee isdiiwaangelinta beddelka xayeysiinta ay tahay qaab ganacsi oo si waafaqsan loo aasaasay oo dhinacyo badan leh. Waxaan u qaabeena ku beeritaanka xayeysiislaan si ay wax uga qabato dhowr waajibaab oo sharci isdaba jooga oo ay ku jirto dham. Waxaan sii wadi doonaa inaan si hufan ula shaqeyno guddiga ayay yidhaahdeen. Faallada shirkadda Google ee iskale Alphabet ee ku aadan arrinkan ayaa weli la sugayaa. Midowga Yurub waxa uu sheegay inuu baari doono 5 fal oo kala duwan oo ku saabsan u hoggaansamid la'aanta shuruucda suuqa dijitaalka ee Midowga Yurub. Baaritaanka koowaad iyo labaad waa in Apple iyo Alphabet aysan u ogolaan aabka inay si xor ah ula xiriiraan isticmaalayaashu oo ay qandaraas la galeen. 3 in Apple aysan siinin isticmaalayaasha doorasho ku filan. 4 in Meta ay si cadaalad darro ah dadka uga codsanayso inay lacag bixiyaan si ay uga fogaadaan in xogtooda loo isticmaalo xayeysiisyada. 5 in Google ay soo saarmarinayso alaabada iyo adeegyada shirkaddu leedahay marka Google wax laga raadinayo. Labada baaritaan ee ugu horeeya waxay khuseeyaan waxa loo yaqaanaa anti-streak. Midowga Yurubna wuxuu sheegay inay aaminsan yihiin in shirkaduhu ay ku adkeynayaan aababku inay u sheegaan dadka isticmaala siyaabaha ay ku bixin karaan wax ka yar adeegyadooda ka baxsan isticmaalka dukaamada aabka ee lacag bixinta gaarka ah. Marka loo eego qodobka 3, Midowga Yurub wuxuu sheegay in Apple ay ku qasban tahay inay u ogolaato isticmaalayaasha inay si fudud uga furtaan aabka aaladahooda bedelaan goobaha caadiga ah iyo in la siiyo shahaadada doorashada si loo ogolaado inay isticmaalaan daalacashada kala duwan ama mareegaha raadinta. Midowga Yurub ayaa sheegay in browserka Apple ee doorashada shaashada uusan dadka siinin doorasho ku filan, waxayna sheegeen in aaladaha qaar sida Apple Photo aan gebi ahaanba la tirtiri karin.